السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxayna sii socon doonaa taxanaheennii murtiye madadaalo sheekadeenna maantana ciwaankeedu waxa weeyaan taasi waa tii dhulka lagaga sheekayn jiray. bari hore ayaa waxaa jiray nin aad iyo aad uga baqan jiray diyaaradaha fuulistooda oo waxa mar walba maskaxdiisa ku jirtay oo uu ka cabsan jiray inay la soo dhacdo oo halkaasi ku qurbaxo amaba uu ku dhinto. haddaba nasiib darradiisa awgeed maalin maalmaha ka mid ah ayaa ninkii tani ku qasabtay inuu fuulo diyaaradda. cabsi iyo welwel ayaa ay ku keentay. kadib waxa uu naftiisa ku dirqiyey inuu fuulo diyaaradda. kadib diyaaraddii ayaa uu fuulay isaga oo aad iyo aad u baqbaqanaya. waxaaba uu ka baqayaa markay kacdo inay la soo dhacdo. ninkii fuul diyaaraddii cabbaar kadib markii uu fadhiyey diyaaradda kursigeedii isagoo cagaha isla dhacaya fulinimo awgeed ayaa waxaa soo ag fadhiistay nin kale oo ka mid ahaa rakaabka diyaaradda. kadib diyaaraddii ayaa kacday. cabbaar markii uu ninkii naxnaxsan yahay ayaa waxaa la sheekaystay ninkii kale ee soo ag fadhiistay. ninkan cabsanaya isaga sheekadaaba u dan ah oo waxa uu isku dhaafinayaa naxdinta diyaaradda. cabbaar markii ay sheekaysteen ayaa ninkii waxa uu uga sheekeeyey qoys ay helahaayeen oo waa hore ama wakhti hore ay diyaarad la dhacday. markii uu ninkii maqlay inay sheekadu ku saabsan tahay diyaarad dhacday ayaa uu soo booday. inta uu afka gacanta ka saaray ayaa uu ku yidhi, war yaa saaxiib iga daa, taasi waa tii dhulka lagaga sheekayn jiray. ninkan fuligaahi sheekada ayuu isku dhaafinayaa baqdinta uu ka qabo diyaaradda. saaxiibkiina waxaabuu soo qaatay sheeko diyaarad dhacday.